iyadoo hobalka caanka ah ee Sharmaboy la soo warinayo inuu shil ku galay magaalada Garowe duleedkeeda sidoo kaleenta codad laga soo gudbiyay oo la wadaagay Sharmaboy walaalkiisa saxafiga weyn ee Munasar sidoo kaleenta waxaa la sheegayaa in uu stress ama ka qaaday madax xanuun janaalkii laga jabsaday oo Daahir Calasow kala wareegay Sharmaboy ayaa la ogyahay in maalmahan ay ku furneeday shaqaaqo kaga timiday dhanka Daahir Calasow iyadoona social media si weyn ay u qabsatay Sharmaboy ayaa la sheegayaa inuu maanta yahay gacan ku dhiigle maxaa yeelay gaari uu waday ayaa ku dhimatay gabar sidoo kaleento waxaa la warinayaa in laba wiil oo kaleento ay ku dhaawacmeen haddaba Sharmaboy walaalkiis oo ka hadlaya shilka dhacay ayaa waxa uu yiri sida tan gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Buuro Wadal oo hoostaga gobolka Sool ayaa abaare 5tii barqanimo meelahaas waxaa shil ku galay Sharmaboy iyo dhalinyaro kale oo la socotay oo Allah u naxariistay dadka halkaas wax ku noqday oo ku geeriyooday ay kamid ahayd gabar la socotay dad ehelka oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in isaga uu caafimaad qabo oo waxba aysan gaarin gacanta xogaa uu diirka ka kacay laba wiil oo kale oo la socotayna dhaawac yaryar uu gaaray laakiin Allah u naxariistay gabadhu ay mataqaanaa ay dhimatay oo ay ku geeriyootay wararka inta badan la isla dhaxmaray hadda sheegay in labada fanaan ay wada socdeen Sharmaarke iyo Maslax ma ahan warar saxa Maslax magaaladu joogay Garowe iyo dhalinyaradii kale ee Sharma la socotay laakiin waxa uu raacay dhalinyaradaas gabadhu ay kamid Ilaahay u naxariisto in badan macluumaadka iyo xogtaasna waa haysaa marka gabadhiina meedkeeda waxa la keenay isbitaalka wiilashiina isbitaalka lagu dhadhayay oo wax weyn saas maysan qabin Daahir Calasow ayaa janaalka Sharmaboy iminka maamulaya sidoo kaleento waxaa muddooyinkii u dambeeyay lagu soo sheergareynayay ama la soo dhigayay waxa uu doono Daahir Calasow waxaana kamid ahaa gudoomiyaha Baqleeso ninka ay u baxsheen Cabdidhaanto haddaba Sharmaboy ayaa iminka la sheegayaa in uu ku xiran yahay magaalada Garowe sidoo kaleento waxaa ka hadlay booliiska Sharmaboy markii uu ka yimid dalka Djibouti oo yimiday magaalada Muqdisho bishii Ramadaan sida la wada ogsoon yahay waxa uu ku baranayay gaari nooca raaxada ah waxaana ku baray isla fanaan kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee Roosacade iyadoo gacantiisa aysan fadhiisan oo la ogsoon yahay Sharmaboy gaari iminka dhow uu bartay ayuuna shilkan ku galay magaalada Garowe haddaba miyuu kula qaldanaa darawalkii u dhiibay gaariga iyo ninkii iska lahaa gaariga yeelay Sharmaboy gacantiisa ma aysan fadhiisan darawal buuxdana ma uusan ahayn leysina kama haysan Soomaaliya haddaba sidee kula tahay fikirkaaga hoos inoogu reeb Sharmaboy turkii uu u tagay magaalada Garowe iyo dhulalka Soomaalida oo u sii socday sida uu afkiisaba ka xaqiijiyay xabsi ayuu iminkaba ku jiraa si kastaba ha ahaatee Sharmaboy iminka xabsi ayuu ku jiraa janaalkiisana waxaa maamulaya Daahir Calasow wixii ku soo kordha xogtan iyo xogo kaleentaba waan idin soo wadaagi doonaa saacadaha soo socdo fadlan janaalka subscribe saar like-na saar haddii subscribe uu ku saaran yahayna waxaan ka codsanaynaa inaad furato gambaleelka like-tana aad saarto muuqaalka fikradaadana commentiga aad noogu reebto gaari uu waday ninka magaciisa la yidhaahdo Sharmaarke Cabdinaasir Maxamed oo ku magacaabay Sharmaboy gaarigaasi waa gadoomay waxaa ku dhintay ciido gaamire sidoo kale waxaa isna ku dhaawacmay in magaciisa la yidhaahdo Cabdinaasir Axmed Shaale
marka sharma boy hadda xagee jooga sharma boy